الله naxariistay waxa xabaalaha naasaha bilood ee bariga magaalada Hargeysa asqar loogu sameeyay marxuumad Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac gudood Carwo oo kamid ahayd bahda warbaahinta iyo fanka noqonaysana gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee heesta waxaana sanadii 1936 ku dhalatay magaalada xeebada Conqor ee ku taala xeebaha Somaliland iyadoo sanadii 1955 ku soo biirtay bahda fanka Allah naxariistay askeeda waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye wasiiro badi bahdi fanaaniinta ee isku taariikhda ahaayeen siyaasiyiin wax garad iyo dadweyne kala duwan Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac gudood Carwo Allah u naxariistay 20 sano ugu dambeeyay waxay ku xanuunsanaysay magaalada Hargeysa waxaana taariikhdeedii ka waramay dadkii kala duwan ee ka soo qayb galay waxaana yiraahdeen 17 waa maalin Khamiis ah xalay magaalada Hargeysa waxa ku xijaabatay naxariistii Janaalaas iyo Xaaji Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac oo 20 sanadood ugu dambeeyay dhulyaal ku ahayd magaalada Hargeysa oo faali ku dhacay waxay jiiftay ilaa 1997 Xaaji Shamis oo loo yaqaanay gudood Carwo hooyadeed waxay ahayd Xaaji Cibaado Cabdi Diiriye Shamis waxay ku dhalatay magaalo xeebeed Conqor oo bariyaha qaar ahayd magaalo ganacsi oo magaalada Berbera bari ka xigta bariyaha ay shidnaydna waxa la shidnaa karin iyo shalac iyo xiis iyo maydh iyo kuwa kale badan oo xiriir ganacsi la lahaa xeebta Yamaneed waxay ku dhalatay Conqor 1936 iyadoo 4 jir ayaa laga soo kaxeeyay magaalada Berbera ayaa la keenay 12 jir bay ku gaadhay Xaaji Shamis oo ku magac dheereyd gudood Carwo waxay ahayd dadkii xansaska iyo xaabadii lagu huriyay u soo gurtay warbaahinta Soomaaliyeed qof magac ku leh ummadda Soomaalida meel ay joogaanba 1997 ayuu faaligu ku dhacay tan iyo maalintaa way jiiftay Xaaji Shamis caruur may lahayn waxa hayay 2 hablood ee deew tahay Ifraax iyo Hoodo oo ilmo Cabdi Abakarna waa walaalkeed Xaaji Shamis halkaas aan ku booqan jirnay kaga warhaynay 20 sanadood ay jiiftay qof ilaaheeda taqaana oo iimaankeedu buuxo ayay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul maut sadaqa Allahu al-aliyyul azim waxaan maanta halkan u joognaa aaskii marxuumad Xaaji Shamis Abakar ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo nabigeedii Maxamed ahaana la xiriiriyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland samir iyo iimaan dhamaanteen inaga wada siiyo Xaaji Shamis Abakar ilaahay waxaynu markaa horeysay erga uga nahay in ilaahay xaajada samiri naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay inuu jannadii firdawsa ugu deeqo Shamis Abakar hadda sidoo booba taariikhdeedii oo tafatiran buu sheegay waa qof qarankan inuu imika joognay reer Somaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba taariikh muddo dheer ah oo soo jireen ah ayay ku leedahay Shamis Abakar ilaahay waxaynu markaa horeysay erga uga nahay in ilaahay xaajada samiri naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay inuu jannadii firdawsa ugu deeqo Shamis Abakar hadda sidoo booba taariikhdeedii oo tafatiran buu sheegay waa qof qarankan inuu imika joognay reer Somaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba taariikh muddo dheer ah oo soo jireen ah ayay ku leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeri walba dee naxdin bay leedahay oo geeri aan naxdin lahayn ma jirto geeridan laakiin way ka duwan tahay maanta waxaanu joognaa geeridii Shamis Abakar Ismaaciil ummadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dadka af Soomaaliga ku hadlaaba
ay u yaqaaniin guduuda carwo waa gabar taariikh aan cid soo koobi karin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut naf kasto ilaahay abuuray halkaasay ku dambaynaysaa waa kii imaam Shaafici kullu ibn unsa wa in dalat salaamatuhu yawman ala alati alhadba'i mahmul nin kasto hooyo dhashay intuu doonaba ha gaadho rag iyo dumarku doonaba aabo waa kii maalmaha ka mid ah naxashka lagu soo qaado oo halka la keeno ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo raajicuun waxaanu joognaa aaskii Shamis Abubakar Ismaaciil oo lagu naanaysi jiray guduuda carwo ilaahay u naxariisto waa ka tacsiideynaya ehelkeedii iyo asxaabtii iyo guud ahaanba dadka ku hadla af Soomaaliga waxay ahayd intaan ka aqaanay qof dhowrsoon oo xishood badan oo dadkan maanta nool ka duwan dadka maanta nool qof ka duwan bay ahayd oo og inay aakhira ku socoto oo kafanta guriga u taalo halla ilaaliyo waxa la Shamis Allah u naxariisto inagana Ilaahay nooga daba naxariisto laakiin kuwan maanta mudan iyadu kuwa mudan maanta in wax loo qabto waa halka ka tagtay السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت والله دمان إياه والله صعون إياه حنون كذا لقوك على ذنبين إياه عينا إفكان شوقي ميسو عليه الصلاة والسلام كيف اللي يس الدنيا الله أبو رأي لها يدين لها نبي محمد بعد الدنيا الله يدين لها والله قد قاتشي ومضى حريري من سنة إلا ما أنت إلا النبي آذن يحاونا تصالون بان يلوغ دغي شمس أبكر قدودو waxay ahayd hablaha taariikhda leh fanka iyo suugaanta dhaqanka ku salaysan kuna saabsan dhaqanka iyo hidaha Soomaaliga ah waxa aan dhaqan iyo hidaa ahayn kama yees jirin inta badan sida aan anigu la socdo anigoo yar baan idaacada soo galay dhalinyaro ah iyadoo markaas waxba nagama weyn dhalinyaro ahayd nimanka toddobaanadii waanu ku dhownahay ilaa 60kii cimri wanaagsan bay soo jirtay dadka way jeclayd way naxariisan jirtay ummaduna way ku tiqiinay oo way jeclayd oo way naxariisan jirtay magac weji dheer taariikh maguurana ayay fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka iyo hidaha ku leedahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa